marka hore waxaan rabaa Allah subxaanahu wa tacaala inaan waalidiintii darteen ugu naf waayey inay nafaheena iyo nafteena ay difaacaan oo dhalay carruurtan maanta aan halkan ku hayno. ilaahay naxariisi janno ha siiyo Allah subxaanahu wa tacaala awooddaas kale. runtii la-aantood maanta annaga halkan ma joognayn, sababta ay u dhinteen oo loo beegsaday waa darteen. haddaan annaga meelahaas ay ku dhimanayaan aan annaga joogin maanta ma aysan dhinteen. marka carruurta waxaan leeyahay aabayaashiin iyo waalidiintiin waa idiin joogaan, waa dadka halkan fadhiya. shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qof kasta waajib ayaa ka saaran carruurta agoonta ah ee waalidiintooda ay u dhinteen daraadeen in laga warhaayo oo isha lagu haayo, la koriyo. waa waajib diini ah oo muqadas ah oo na saaran. marka waxaan leeyahay carruurta mustaqbalka waad ogaan doontaan insha Allah. idinkana wadadaas oo kale inaad waalid u noqotaan ayaan rajeynayaa markaad weynaataan, markaan annagana booskaas ka baxno. marka taas waa taas. waxaan leeyahay waxaan u mahadcelinayaa dadkii dhammaan ka qayb qaatay dhisidda iskuulkan waxbarashada ah. wasiirka waxbarashada oo ballan qaaday inuu wax kusii darana waa uga mahadcelinayaa. waxaan leeyahay carruurtaas waa carruurteennii insha Allah. carruurta waa ka warhaynaynaa insha Allah. ilaahayna qalbigeena kama saaro, mar kastana waa ka warhaynay, haddana waa ka warhaynaynaa. intiina kalena iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha loo soo gurmado carruurta agoonta ah ee meel kasta ay joogaan. ay ugu horeyso carruurtan booliiska, agoonta booliiska ha loo soo gurmado, gacanta ha lagu hayo. waa carruurteennii, waa ubadkeennii insha Allah. iskuulkan dugsiga hoose dhexe ee Jenaraal Maxamed Abshirna waxaan leeyahay in qaybo kale lagu sii daro secondary ayaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan. aad ayaa